الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الإمام أحمد عليه رحمة الله وحو مسند كيس كوري حديث كورين أيوه صحابي قال له أبو ذر الغفاري. أبو ذر روح إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحو يليه صدح روح إلهي باجعل صدحنا إلهي بانعب الله وعرضه صدح ذا الله جعل تبارك وتعالى نبي قوله صلى الله عليه وسلم ككوبادي وحوي نين لكل ميا عدو جيس كوح عيدماء ومسلمين بيوض السعودان عدو بي لكل ميان markay cadawgooda la kulmaan dhuuntiisu u dhigayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam yaani khatartii ku soo aadanayd ciidankan kooxday wada socdaan ayuu isu dhigayaa ilaa amal la dilo ama uu ciidankii guul u soo hoyiyo oo goobtii isaga sababtiisa lagu furto bimaana wax weeye waa nin dadkii la socday oo isku muhiimada ahaayeen ka dhaxbaxay oo khayr iyo wanaaga uga dheereeyay oo meelaha khatarta iyo halista u galay naftiisana u galiyay علشان inuu diinta ummadda iyo dadkeedaba inuu badbaadiyo asaguna uu iskhatar galiyo tamayuz balada inuu ruuxa muslimka isku dayo inuu mar walba qeyrkii kaga fiicnaado wanaaga kaga horeeyo khidmadda iyo adeega ummadan xoolahaaga iyo naftaada iyo aqligaaga iyo cilmigaaga in aad ugu adeegto ayadii ku ilaaliso ku hormariso qeyrka haduu ka haro xataa adigu inaadan ka hadhinaad u hormarto xataa hadaad ku kaliyeysato خير با في عن واحد لو كليست تاسا النبي صلى الله عليه وسلم وتلمامي الله تبارك وتعالى ما أصنسمين ضدك أهل الخير كخيرك كمسمين وحقوق قيبيي أيجو أردمان تضد مؤمنين إلى صدح قيموضة كلا سرية لو قيبي ظالم لنفسه هي مقتصد هي سابق بالخيرات مدل الدنيا مركب وحوي إن الله عضو قلدا أوه الرسين النبط والسابقون السابقون أولئك المقربون دتك إلهي على تبارك وتعالى وحو كتش على ذي ما هذا تدود معه يا أبتر كودنا معه ميذب كودنا معه لكن الله وحو كتش على ذي دتك كجد حبحين وانا أجيب يجهر مرين خير كيف كجفي عناده ساس ربي كتش على ذي تبارك وتعالى ninka labaad ee nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inuu alla jeceliyo waxay dad safar ah oo socoto ah oo guuruhu la dheeraaday habeenkii oo dhan bay socdeen waa daaleen waa rafaadsan yihiin ilaa ay jeclaadaan in yaani ay dhulka taabtaan yaani mar uun inay fadhiistaan oo jirkoodu dhulka gaaro ilaa ay jeclaadaan daalka haya daraadeed ba habeenkii oo dhan guureynayeen ayagoo saa u daalan oo rafaadsan ونفتو هيسو أيه مركي دم بدجين برسول الله صلى الله عليه وسلم مركي دجين دتكي صعطة السفرتها إنتو ذي كلواس ساحدين هل نبان يسوي ساحنا دين عبو أبحي صلاة بوسلتاga ربي جيبو تكنيه سيدو ذو كلوا داليه ورفاتيه ودبيه انت هيستا كون سيخداي وا هيستا اسغنا لكن سي او سيخدين وما سيخنين صلاه بو اسلا تاغاي قصدكيسونا waxa weeye inta waqtiga laga gaadhayna rabbiga u tuko raali gali waqtigu markuu gaadhana safartan yeysan hurdadu la tagina u kici safarkoodi iyo socdaalkoodi u kici oo hurdada ka kici intii waqtiga la gaadhayna salaad buu ku jiray waqtigoodii markii la gaadhayna hurdadu ka kiciyay markaasuu safartii la sii galay
daalkii habeenkii oo dhan iyo taagnidii habeenka inta soo hadhay iyo safartii dambu isku darsaday war sida dadkan oo kale maad iska seexatidood iska nasatid maya tamayuz waxyeeladaa jira adoomadu isku mid maaha nin baa jiifa ninna waa taagaya nin baa raaxaysanaya ninna waa ordaya nin baa intiisa isagu gadaal marsaday ninna intiisiibuu ku dadaalaya ummadda ku anfacaya waa la kala tegay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu jecel yahay addoommada mutamayiziinta ah ee qayrkood ka hormaray waana ta qur-aanku in badan inoo tilmaamayo ee rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala war khayrka u degdego u tartama tanaafuskiiyo dartanka gal qayrkaa ka hormar wanaagga uga dheere innaga waxaynu naqaanaa in adduunyada lagu tartamo tanaafus guryaha la kala dheeraysto milkiga lagu tartamo xoolaha lagu tartamo caduurta la kala badsado waa dabeecad bini aadam alhaakum الtakaathur xataa zurtum اlmaqaabir laakiin in xagga khayrka loo tartamo qayrkaa ka horayso ood majaalaadka intii suurtagal aad tamayuz ku samaysaayo middaa way midda alla jecel yahay tabaaraka wa tacaala ninka saddexaad ee nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ruux daris xun leh daris buu leeyahy laakiin dariskiisu waa daris xun wax lagugu imtixaanana waxyaalaha ugu dhib badan waxaa ka mid a in darisku kugu xumaado weliba dariska baadiyaha nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa kala guuraayey daris magaalo kaana guuri maayo dhibkiisana hadduu ku haysto shaqaawaday ka mid tahay buu rasuulku tilmaamay sal alla alay wasalam dhibaatooyinka aadamaha qabsada kuwa ugu daran bay ka mid tahay daris aydaan kala guurin haddana kugu xumaada dariskii baa ku xumaaday waa dhibayaa waa ku rafaadsan yahay kama nabadgelayo haddana dhibkiisa waa u sabrayaa ilaa ama geeri kala kaxayso ama geedi kala kaxeeyo ilaa ama ay kala guuraan oo geedi ka kaxeeyo ama geeriiba ay dhaafiso intaa dhibkiisa waa u sabrayaa dariskan iyaduna waa nooc tamayuz ah yaa allah tabaaraka wa tacaala addoommada dabeecadda lagu abuuray waxaa ka mid ah ruuxu markii dhib loo geysta ama dhib uu dareemo inuu isku dayo inuu aargoosto inuu iska dayo inuu ka jawaabo inuu ficiltamo laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay taa waxaa ka fiican in aad sabirtood adkaysato ood qayrkaa ka roonaato oodan la ficiltamin tamayuskaasi mawaaqifta iyo falka iyo ficilka iyo adeega uu ruuxu ku hormarayo qayrkii kaga horaynayo saddexda xadiid macnahaasay tilmaamayaan waa macnaha la doonayo in aynu fahanno kadibna tartankiisa inaynu galno midda hore waxaa ku soo aroorayoo miaalada ka mida xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qisadii saxaabigii anas ibnu nadr la dhihi jiray radia allahu tacaala canhu waardaa dagaalkii beder buu ka maqnaa markaasaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waxaan ka maqnaaday dagaal aad gaalo la dagaalantay kii ugu horraysay baan ka maqnaa waa ka xumaay laakiin ballan ilaahay waxaan ku galay dagaalka labaadeed gasheed gaalo la kulanto ilaahay inuu arko waxaan sameeyo dagaalkii uxud baa dhacay saxaabadii waa la jabay waxaa dhacay khalad baa dhacay qur-aanku tilmaamay anas ibnu nadri saxaabiga la yidhaahdo markii raggii ay goobtii ka baxeen waa soo dabamaray wuxuu u soo dabamaray gaaladii iyo ciidankoodiioo goobtii jooga oo raggii intoodii kale meeshii ka tageen ayuu u soo dabamaray wuxuu leeyahay markaa uu sii socdo keligii sii socdo ilaahayow saxaabadaasi raggaas goobta ka baxay waxa ay sameeyeen waan ka cudur daaranoo waan kaaga cudur daaranaya saxaabaduu ku wada gaaladan nebi maxamed la dagaalantay ee dhibkaa geysatay waxay samaysana ilaahu beri baan kaaga ah kadibna horay buu u socday waxaa la kulmay saxaabigii la yidhahda sacd ibnu mucaad oo isaguna goobtii raggii ka soo baxay ka mid ahaa oo socda wuxuu yidhi war xaggee wuxuu yidhi sacdow jannada carafteedii baa waxay iiga soo udgaysaa buurtan uxud sokadeeda buurtan uxud waa buurtii dagaalku hoosteeda ka dhacay wey buurtan sokadeeda waxaan ka helayaa caraftii jannadaan ka helaya wuxuu leeyahay mucaad sacd ibnu mucaad wuxuu leeyahay rasuulka ilaahayo wuxuu sameeyey anigu waa kari waaye keligay inaan rag dhan oo ciidama u badheeroon isku dhex tuuro waa ii suuroobi weyday waa tegey waa dagaalamay waa la dilay 80 iyo dhowr nabar baa jidhkiisa laga tiriyey oo seef ku dhacday
waran ay ku dhufteen markii dambana suuradiisii oo dhanba wayba googooyeen jidhkiisii baa waxba laga garan waayay farihiisa xubinka u horeeya oo badbaaday baa waxay garatay gabadh walaashiya garatay oo tiri xubinkani waa xubinkii walaalka intiisa kala dhawaaba la kala jarjaray u fiirso wuxuu leeyahay Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu saxaabigaasi wuxuu leeyahay aayadda quraanka ee suuratul ahzab alla ku tilmaamay inay jiraan rag ballantoodii ka soo baxay oo aan ballantoodii jabinin waxaan u arki jirnay buu leeyahay inay ku soo degtay Anas ibn Nadri rag la midka macnaheedu wax weeyaan sida ragga saaxiibadiya goobta uga baxeen waa uga bixi karay waa carari karay sharaacadu waa u ogolay hadana maca dalika xaaladaasi markay timid raggii qeyrkii waa ka dhaxbaxay khayrkii wanaagii buu uga dhaxbaxay amaantaas ku timid macnaheedu wax weeyaan ha isku dayno ha isdihin wanaaga iyo khayrka hadaan garbahaaga la soconin oo aan lagu la shaqaynaynin oo aan يعني كوح أيضا أهين هذا اللي يسكهري هذه محاكو دي كما الناس لا بأس دت كاغا كم من نقو مايا دت كاغا هوري وغسعو هرمود كان نقو خير كوه قامي سابق النقو قدال هاي سودي قدال مري هوري وغسعو سيدا سي شرعادو إنا بريسا ربنا إنا قدل بيا تبارك وتعالى الروح والبا مطلبك إغايدا إنو عسكدو أو راديو صدح دا إلهي النعبي هاي تبارك وتعالى خطبة هذا هورين وكاغا هذا اللي نبي قول صلى الله عليه وسلم وانين قناع الصداع ودار بدل قناع السيقيسي بدي عدي سوحو كسعود سيا دار والله إنا انت كسو قضي والله إنا انت إيقو فرددا والله إنا انت سينيا دار بو قناع السيقيسي كوكلا وضا وار إلهي مجي سيا قناع سيمحا إسقليه هدنا اللغا يابا إنو بين شيغيو oo dhaartaasi ay beenta ninka labaadi waa nin faqiir ah oo miskiin ah oo baahan hadana xaraga kibrayo kibiraani ah war kibir iyo faqiirnimo maxaa iska galay faqiir miskiinnima lagu ogaa inuu isliidaa lagu ogaa inuu dhulka isdigaa lagu ogaa ilaahay isu liido maxaa keenay adigoo wixii lagu kibriyaaba aan haynin hadana inaad kibirto xaraga kibirtood isweynaysid meeshaba ma taalaba khubthi iyo xumaan ku jirta waa ninka saddexaadi wax way waa nin bakhayl ah oo gacan adag oo waxba bixinin haddana galladaysi badan wax ma bixiyo marmar iyo silic iyo si naadir ah iyo in yar baa marmar laga helaa intii yar tahaydee markaa sida naadirka looga helayna ka daba hadhi maayo wuxuu ka daba geynayaa sheegasho iyo manni iyo soonigii ku siiyey soonigii bixiyey soonigii kan ahaa soonigii kala tuuray soonigii kuu deeqay soonigii dhibkaa kaa saaray war wax yar baan bixin xilli muxuu ahay naadirana waxbaan bixin intaan bixiyeyna ka daba hadhi maayo waan sheegan iyaduna isma laha saddexdan ilaahay waa nacab yahay tabaaraka wa tacaala taajir ganacsada oo dhaar badan faqiir aan waxba haysanin oo xaraga kibir badan iyo nin bakhaylo gacan adag oo hadana galad sheegasho badan sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'ani as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك